gudoomiyaha degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado ayaa ku howlan horumarinta waxbarashada degmada waxaana socda mashaariic diiradda lagu saarayo in lagu horumariyo goobaha waxbarashada waxaana mashruucan horkacaya gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Cali Shariif iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan degmada maamulka degmada ayaa kormeera goobaha waxbarashada si ay ula socdaan tayada waxbarashada ee degmada waxaana ka go'an gudoomiyaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee degmada in ay soo saaraan arday Soomaaliyeed oo wax baratay oo mustaqbalka wax badan ku soo kordhin kara degmada aqoon-yahanada iyo dadka ku nool degmada ayaa aad u soo dhaweeyay dadaalka ay wadaan maamulka degmada waxaana gudoomiyaha degmada ay ku amaaneen hawsha uu u hayo bulshada degmada halkaan maanta taaganahay waa isbitaalka degmada Buurdhuubo oo muddo iska dayacnaa wax shaqo aysan ka soconin oo ay ku dhibaataysnaayeen dadka deegaanka jooga halkaasaan saakin dheeyn soo aadnay dhinaca kale maamulka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado ayaa ku howlan horumarinta deegaanka ee dhanka wax soo saarka maadaama degmada Buurdhuubo ay leedahay beero badan oo ay ka baxaan dalagyada kala duwan marka aad hesho maamul u heelan bulshadiisa isla markaana garab istaagan dadkiisa waxay micnihiisu ay noqonaysaa in gudoomiye Cali Shariif uu noqday gudoomiyihii ugu fiicnaa ee soo maray degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado in badan aan xabashooyin badan la wadaagnay dawladda federaalka Soomaaliya iyo deeq-bixiyaasha caalamka wax fara badan oo rajo fiican ah waxaan ka qabnaa weeygaan gudihiisa wax badan laga soo gaari doonaan oo gacan laga geysan doono hadii ay dhismo tahay iyo hadii ay daaweyn tahay dhaqaatiirtii hore uga shaqeynaysay oo intaas 2015 iyo 5 inta ka dambeysay si frontier isaga taagneed wax daawo iyo wax mushaarada oo helaan aysan jirin iyo ku soo booqnaan saakii soo hormeernay muddooyinkii ugu dambeeyay degmada Buurdhuubo waxa ay ka mid noqonaysay degmooyinka ugu ammaanka fiican marka loo eego degmooyinka kale ee gobolka Gado taasna waxa ay ku timid wada shaqeynta laamaha amniga iyo sidoo kale maamulka degmada oo taageero ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Buurdhuubo